kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada Afmeer TV xilligan oo kale waxaad nooga barateen inaan idin soo gudbino hadba wararka ugu dambeeyay ee geeska Afrika gaar ahaan geyga Soomaaliyeed iyo wadanka lagu magacaabay jiray Ethiopia ee burburka lugaha la galay. daawadayaal barnaamijkana markuu idin soo gaaro share gareeyo oo la wadaaga bulshada Soomaaliyeed qadar yar kadib ayaan guda gali doonaa barnaamijka. xaaladda Ethiopia ayaa runtii aad iyo aad looga dayrinayaa oo maalinba maalin ka dambaysa sii gelaysa jawi cusub. marka qodobadeena ayaan guda gali doonaa goordhow. marka raalli hada xagga farsamada ayaan xogaa habeynayna kadib barnaamijka ayaan toos u guda gali doonaa haddii la yiraahdo. waxaad la socotaan wadanka Ethiopia lagu magacaabi jiray in xaaladiisu ay kasii darayso oo meel adag ay marayso. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانا والسلام يا دمانتين سود وهذا خياري مركز جوكتان والله ما شاء الله واركا مركا إن شاء الله وان قد قلنا وحنا مسنا دمانتين إن المدونه ما أنت وحلو بهي مدنمو إيه إن ما لقى سود كيسدو سيدا أيها جوش اللي قاعد كراه وضركت الشعب كورمية إني مدوبين كوي ما مركضها la shaqeynayay gumaysiga iyo kuwii xuquuqdooda raadinayay ee halgamayay. sidaa darteed shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaa looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed ogaadeenaya in ay maanta guntiga dhishis kaga dhigaan oo maanta ay taladu dhowdahay xuquuqda shacabka Soomaaliyeed ee dulmiga inta badan ku jiray la soo dhiciyo maanta. marka xaaladdu aad ayay u fiican tahay Ethiopia laakiin uma fiicna iyo wixii abasiinay loo oran jiray. marka waynu guda galaynaa insha Allah barnaamijka share gareeya si aan barnaamijkan u guda galo hadii la helo. السلام عليكم. soo dhawaada dhammaantiin akhyaaray meel kastoo joogtaan. waxaan arkaa muwaadin qoomiyadda Oromiya kasoo jeeda waan soo dhaweynaynaa very welcome baan leenahay saaxiib. sidaad wada ogtihiin Ethiopia dal la yidhaa ayaa caalamka aqoonsanaa oo ay ku dulmanaayeen qoomiyada aad u fara badan oo Soomaalidu ka mid tahay, Oromadu ka mid tahay, Benishanguul, Canfarta, Gambela iyo dad aad u fara badan oo qoomiyada kale ah. waxaa la isku dayay xilligii Axmed Gurey in geyga Soomaaliyeed laga xoreeyo Oromiyana laga xoreeyo gumaysiga. waxaa dhacay in xilliga ayada ahayd Ethiopia ay kaalmo heshay oo runtii lagu guul dareystay in xilligii Axmed Gurey laga xoreeyo Oromiya iyo gebi ahaanba geeska Afrika wixii loo oran jiray Abasinia. isku daygii labaad ee xoog badnaa wuxuu ahaa 1977 kaasoo runtii guul wanaagsan laga gaaray laakiin markii dambe iska fashil ku dhamaaday. laakiin Ethiopia wixii loo oran jiray dhaawac xoog leh loo geystay oo loo awood sheegtay kadibna ummadda Soomaaliyeed ay siyaasiyan reer galbeedku ka raaceen gumaysiga Ethiopia. haddaba halganka ONLF ay runtii usha u haysay ama ay horkacaysay laga soo bilaabo bishii Abriil 1994 ilaa maanta meel adag ayuu marayaa. qodobadeena ayaan guda gali doonaa iyo xaaladda Ethiopia maanta meesha marayso. marka barnaamijka inoo baahiya insha Allah la wadaaga bulshada si aan horey u sii galno xaaladihii ugu dambeeyay Oromiya iyo wadanka Ogaadeniya. haddaba ma aha ummadda Soomaaliyeed kaliya waxa gumaysigu haysto shacabka Oromiya oo 50 milyan kor u dhaafaya ayaa gumaysiga soo haystay 340 sano muddo lagu qiyaasaya hadda.
shacabka oromiya waxay halganka bilaabeen muddo dheer ayay ku tala jireen halgankan ay ka qayb qaataan shacabka soomaaliyeed ay ku jireen laakiin duruufaha haystay iyo xilligaas wacyiga jiray ayayna u suurtagashanayn inay suurtagal ahayn inay xilli hore bilaabaan laakiin xilligan oo wacyiga oromiya shacabkeeda uu kor u kacay aqoontooda ay aada u sarreyso waxay go-aansadeen laga soo bilaabo 2005 in ay ka hoos baxaan gumaysiga Ethiopia. haddaba oromiya waxay si rasmi ah ay u bilaabeen revolutionka ama kacdoonka bishii 2015 November 9 ayay kick off ku sameeyeen inay si fiican u bilaabaan kacdoonka oromiya. haddaba shacabka oromada iyo shacabka soomaalida oo meelo badan dariska ah walaalo ah waxay isku dayayaan qoomiyadda Tigreegu markay holin waayeen halganka ONLF ay hogaaminayso iyo halganka shacabka oromiya iyo jabhadda Oromo Liberation Front waxay damaaci kaga jiraa inay isku dhuftaan labada qoomiyadood oo ay isku habsaamaan oo dagaal u dhaxmar sokeeye oo runtii aad u foolxun si ay Tigreegu u badbaadiyaan wixii la oran jiray Ethiopia iyo powerka ay ku haystaan Ethiopia ay halka la fadhiyaan Addis Ababa ama Finfinni. haddaba xogihii ugu dambeeyay ee aan ka helayno wadanka oromiya iyo wadanka Soomaalida Ogaadeniya ama Soomaali galbeed qof walba sidoo u yaqaano ayaan goor guda galeynaa inta dadku xogaa ka soo galayaan ayaan sugaynaa akhyaaray kacdoonka qoomiyadda oromiya ay wadaan ayaa runtii faraha ka baxay waxaana la oran karaa caawa oo idin xaqiijinaya wadanka oromiya intiisa badan inuu xor ka yahay gumaysiga wayaanaha oo hadda ay meel adag halgankaasi marayo. haddaba waxaa jira kulamo loo balansan yahay wadanka oromiya oo ka dhici doona markay dadku soo yar galaan ayaan si fiican u galeynaa barnaamijka oo la qiyaasay inay kasoo qayb galaan ilaa 5 milyan oo dad ah maalmaha soo socda. waa kulankii lagu kala bixi lahaa wixii la oran jiray Ethiopia. adduunkan ma aha qori kaliya in la qaato laakiin shacabka oromiya qalinkooda iyo codkooda iyo cududooda shacbiyan ayay ku halgameen ayaa la oran karaa. wala way jiraan jabhad hubaysan oo u dagaalanta xorriyadda oromiya ay jirto haddana shacabka oromiya ayaa codkiisu ka dheeraaday cid walba oo la oran karaa gumaysigii Tigreega salka ayay dhulka ugu dhufteen. dad badan oo Soomaaliya waxaa laga yaabaa inay caawa barnaamijka markay daawadaan ama dib ka daawadaan ay aad ula yaabi doonaan warbixintan aan soo gudbinayno. haddaba waxaa jirta magaalada Jigjiga iyo magaalada Harar inay kala xiran yihiin. magaalada Harar qofka u socda Dirdhaba ee Jigjiga ka tagay waa inuu diyaarad raacaa. Harar iyo way kala xiran yihiin Jigjiga. ciidanka wayaanaha iyo maleeshiyaadkooda kaliya ayaa istaba socda. maxaa keenay marka inay kala xirmaan oromiya iyo shacabka Soomaalida Ogaadeniya? maxaa keenay? waxa weeyaan arrintan waa arrin ay kasoo baaraan degeen Tigreegu. waa arrin ay ugu tala galeen inay isku dhuftaan labada shacab. maxaa ka dhaxeeya shacabka oromiya dhulkiisa waa la yaqaanaa, shacabka Soomaaliyeed dhulkiisana waa la yaqaanaa. boqolaal sano kumanaan sano ayay darisahayeen never weligood mayna dagaalamin. maxaa keenay 2007 inay iyaga oo qolo walba xorriyadeeda ay raadinayso oo halgan adag ay kula jirto gumaysiga? maxaa keenay in la yiraahdo Tigreeg baa dhexdhexaadinaya oo dad ayay iska laayeen? waxaad ogtiin maleeshiyada new booliska ee Soomaalida ah waa ciidanka Ethiopia. sidaas la mid ah waxaa jira ciidan fara badan oo qabri dahare goday wardheer jooga oo ugu badan qoomiyadda oromiya oo ka tirsan ciidanka Ethiopia oo dhibaato ka geysanaya dhulka aan soo sheegnay ee Soomaaliyeed. ciidanka oromiya ee halka jooga ma matalaan ama representative kama aha qoomiyadda oromiya ee waa ciidanka Ethiopia ayay matalaan. ciidanka new booliska ma matalaan ummadda Soomaaliyeed, waa ciidan Ethiopia ay leedahay oo matala gumaysiga Ethiopia. haddaba ummadda Soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa dadkii awooday lagu laayay waxaa laayay sirdoonka Tigreega iyo maleeshiyaad Oromo ah oo caloosho shaqaystayaal ah oo la socda gumaysiga Ethiopia ama Tigreega. sidaa darteed
labada halganee socda ee runtii midhahoodii la arkay ee midho dhalay ayay Tigray waxay doonayaan inay dhabar jabiyaan oo qoomiyadda Oromiya ee runtii horumarka ballaaran ka samaysay xornimo-doonnimada ama gobonimo-doonnimada in ay soo jeediyaan dhinaca Soomaalida oo ay halgankooda iloobaan lagu mashquuliyo idinkaa leh magaalooyin Soomaaliya ama gudaha ku yaal ilaa iyo xataa gudaha Somaliland taas inay ku mashquuliyaan ayay doonayaan ummadda Soomaaliyeed oo ummadda Oromiyana ay ku soo mashquulaan halganka adag ay ku jiraan ay dib ugu soo noqdaan oo ay isugu yimaadaan xuduudaha labada qowmiyadood halkaana ay direer ku dhex marto aan qofna dan ugu jirin ee dan ay ugu jirto wayaanaha haddaba ma lagu guuleystay oo ma ku guuleysteen inay isku dhuftaan Soomaaliya iyo Oromo maya iskumayna guuleysan laakiin waxay ku guuleysteen isu socodkii labada qowmiyadood inay hakiyaan oo ayna jirin wax xiriir ah oo ama transportkii basaskii iyo baabuurtii soconaysay inay meesha ka baxaan iyo businesskii la isdhaafsanayay Oromiya xaggeeda waxba ka yimaada xaggana waxba ka taga beeraha iyo dhulka iyo businesska wad garanaysaa labada arrimood ayay Tigray cuskanayaan inay kala gooyaan xiriirka labada qowmiyadood inay iftiimiyaan inay colaad halka ka jirto last week ama toddobaadkii tagay waad arkayseen prime minister ku sheega Haile Mariam inuu u yeeray labada horjooge mataqaana oo suuqay Addis Ababa oo la yiri heshiis ayay ka gaareen islayntii ay islaynayeen waa la yaab la way marka waa fashil way fashilmeen sida darteed maadaama ay ku fashilmeen arrintan oo Soomaaliya iyo Oromo ayna wax colaad ka dhaxaynin waxaan loo sheegay marka inay aad uga walwalsan yihiin oo ay ku dadaalayaan kaliya inay shacabka Oromiya ka dhigaan go'doon ku jira dhinaca Oromiya kaliya oo dhinaca Soomaalida ay ka xiran tahay gabi ahaanba section ama maxaa cuna qabatayn sida shacabka Soomaalida ogaadeen iyo looga xiray jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ku sameeyeen xuduudda dheer beenaadka u dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed gaari ka soo gali kara malaha oo iman kara qabri dahar isagoo ka soo baxay gaalkacyo ma jirto gaari ka soo baxay beledweyne oo iman kara magaalada Goday ma jirto haba yaraatee halka wadada ee furan waxa weeye waa wadada Wajaale iyo Hargeysa isku xidha maartay jigjiga oo iyagu kontrolayaan haddaba waxaa la rabaa shacabka Oromiya in go'doon laga dhigo oo Oromiya kaliya laga dhigo prison xabsi dusha ka banaan oo inaan access u helin inay soo baxaan xagga Soomaaliya soo aadaan iyo dhulka Soomaaliyeed sidaa darteed ummadda waxaan u sheegaynaa Soomaaliyeed meel ka soo joogaan Ethiopia way burburtay Ethiopia way kala tagtay xaaladeedu meel adag ayay maraysaa qoysaskii ugu dambeeyay Tigray ee Dirnaba jooga ayaa diyaarada lagu daad guraynaya qof kasta uu la hadli karaa magaalada Jigjiga uu la hadli karaa Dirnaba uu la hadli karaa Harar iyo Addis Ababa iyo Nasireed ilaa mooyaane wad garanaysaa Soomaalidu meel kasta meel badan ayay joogtaa ay degan tahay xogtana waad heli kartaan haddaba xogta caawaan helay oo nalaga soo diray wadanka gudihiisa waxa sheegaysaa in ciidanka jabhadda xoreynta Ogaadeniya ay dagaala laxaad ku qaadeen ciidamada gumaysiga oo isku dayay inay u soo gurmadaan ciidamada xagga Oromiya gudaheeda inay go'doon ku yihiin wadanka gumaysiga ku jira Soomaaliyeed sidoo kale waxaa la sheegayaa ciidamo fara badan oo gobolka wadanka Soomaaliyeed joogay inay isu soo dhibeen ciidanka jabhadda ONLF warkaas waa war xaqiiqo ah oo la soo gaaray caawa wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan Ethiopia ka imanaya magaalada Finfinni ama Addis Ababa aad u taqaanaan laakiin magaceeda Finfinni loo bedelay maalinka Axad ee soo socota waxaa loo balansan yahay kulankii kama dambaysa ahaa ee qoomiyadda Oromiya wada tashiga ahaa ay ku yeelanayaan magaalada Addis Ababa meel duleedkeeda ah kaasoo la qiyaasay inay isugu yimaadaan ilaa 5 milyan oo dad ah isugu yimaadaan arrinta oo fiirsada waa maalinka Axad ee soo socota ilaa 5 milyan dad lagu qiyaasay oo ka soo jeeda shacabka Oromiya ayaa waxay isugu iman doonaan meel Addis Ababa duleedkeeda ah sanadkii hore bishii June waad ogeydeen mar ay isugu yimaadeen festival religion oo ku maartay halkaas ama
soo bax diimaha ay caabudaan waliba diinta masiixiga qoomiyadda oromada qayb ka mid ah oo xataa amxaaradu ay iman jireen waad ogeydeen intii dad ku dhimatay ee boholaha ku daadatay markii diyaaradaha lagu duqeeyey. hadda kan testi ayay ku sameynayaan qoomiyadda oromiya lambarkii ka badan ayay isugu soo baxayaan. waxaa isu imanaya aqoon-yahanka oromiya ee jooga gudaha wadanka oromiya. etoobiya wax la yidhaha ma jirta, hadda lama odhan karo etoobiya. haddaad etoobiya tiraa oromiya waad ka xanaajinaysaa. shacabka oromiya ama magaalada finfini iyo agagaarkeeda iyo dhammaan wadanka oromiya waxay isugu imanayaan Addis Ababa duleedkeeda maalinka axadda ah. halkaa markay isugu yimaadaan waxgaradkooda, culamaa udiinka kala duwan, kuwa masiixiga muslimiinta iyo dhammaan wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu, iyo waxaa isu soo iman doona xitaa kuwa dowladda ku jira ee oromada ah ayaa kasoo qaybgelaya. waa wadatashi guud oo shacabka oromada ay isugu imanayaan maalinka axadda ee soo socota, kaasoo isu bedeli doona mid aan dheg la qabtay yeelan doonin. waa 5 milyan oo dad ah qiyaastii ayaa isugu soo bixi doontaa meel Addis Ababa duleedkeeda. haddaba isha ayaynu ku haynaynaa maalinka axadda ee soo socota, haddaan wax isbedelin xogta aan helay in maalinka axadda ay noqon doonto maalinka kala baxa Ethiopia wixii la odhan jiray. marka akhyaaray arrintaas ayaa Ethiopia kasoo cusboonaatay, aad ayay xaaladdu u adag tahay. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan idiin salaamay. barnaamijkana shaargareeya, gaadhsiiya bulshada si ay u ogaadaan xogtan. isu soo baxan maalinka axadda aynu ku jiro, bishan aynu ku jiro, ama maaratay dabayaaqada haddii la yidhaa, waxaa isu soo baxaya qoomiyadda oromiya halkaa isugu imanaya. tigraaga maamulkooda jooga finfini ama Addis Ababa waxaa laga soo sheegayaa inay leeyihiin waanu taageersanahay isu soo baxaas, waxba kama qabno. nothing they can do, waxba ma qaban karaan. wax alla waxay ka qaban karaan ma laha. sidaa darteed kii horey ku ceeboobeen kan waxay leeyihiin waan taageersanahay. wacalaykum assalaam cabdirasaaq, soo dhawow. aad baan ku salaamaya dhammaantiin, waan idin salaamayaa, soo dhawaada. waxaa laga soo sheegayaa in ay qoomiyadda wayaanaha ay leeyihiin isu soo baxaas baaxadda leh ee malaayiinta oromada axadda isugu imanayaan waan taageersanahay. oromaduna waa very clever hadda moogtahay, aad bay bahasha u fahmeen ciyaarta. qof muruqiisa markuu arkana lama celin karayo xooggiisa. nin xoog badan buu ahaa fulaya, marka waa la lagdi jiray markasta. niman tabar yar baa lagdi jiray, waan xusuustaa. waan ilaa xataa 1996kii meelahaas ahayd, waan yaryareen markaas. saas maanan maaratay aad ba maaratay dad dhudhuuban waan ahayn, san maanan u xoog badnayn. marka waxaa dhacday ninkii xooga badnaa yaa xooggiisii ilaahay tusay. nin buu ku fadhiistay, wuu legday. marka waxaa leeyahay hala kala qabto oo nimanka hala isku celiyo. markaasuu ninkii baa macnaha qof hadduu ku legdado mar xooggiisu ka qarsoonaa, wax kaa celin karaya male. qoomiyadda oromiya hadda waxay arkeen marka masalkooda, xoogooda, ciidanka tigreega iyo lacagtooda iyo waxay wataan, waxaasoo dhan ma yaqaanaan. xaaladda markaan fiirino dhinacan jabhadda ONLF, ololaha ay wadaan ee baaxadda leh iyo ololaha ka socda oromiya, xidhiir intee leg baa ka dhexeeya. xogta afmeer TV heshay anagoon cidna afkeeda ku hadlaynin. waa joint waxa la yidhaha operation ama maarta si wada jira ayay u fulinayaan qorshahan. waa mid degan oo labada qowmiyadoodba u degan siday uga xoroobi lahayn gumaysiga oo isla jaan qaadaya wey. haddaba waad aragteen gaadiidkii tigreega basaska salaama la yidhaha ee ka shaqeyn jiray Ethiopia wixii la odhan jiray oo ay lahaayeen shirkad tigreeya, maanta meel ay ka howlgelaysa ma laha. gebi ahaanba waxa weeyaan shacabka oromiya dabka ayay saareen. wax alla wixii tigreega ay lahaayeen transport everything waxa weeyaan maarta way maarta hawada ka bixiyeen. dhaqaale ahaan haddii u burburiyeen tigreegii qoomiyadda shacabka oromiya ama dhalinyarada Cairo maarta la yidhaha, runtii waxay sameynayaan marka in
dee nimanku isma dhiibi karaan tigraaga cannot give up moogtahay quickly marka waxay rabaan reason ay ku cararaan uga tagaan dalka. wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. reason ay uga tagaan dalka oo macnaha dowlad bay nimanku weli dowlad way yihiin la iskama carari karaan. international communityguna waxay ku ogyihiin Ethiopia wixii la oranayay tigraaga inuu ku ogyihiin inuu weli still ay mataqaanaa ay halkaas dowlad ka yihiin. haddaba responsibility-ga saaran waxa weeye qowmiyadda wayaanaha way out inay helaan marka ma they cannot run away moogtahay maqalas quickly marka they still can maartay waxay is adkeynayaan si aan way carareen ama maartay Ethiopia way burburiyeen. international community-ga way ka cabsanayaan midda kale waxay ka cabsanayaan in lagu sameeyo aargoosasho oo lagaga daba tago maqale. laakiin waxaan dee caddaynayaa wacalaykum salaam daahir soo dhow dalmar soo dhowaan ma aha wax qofku jecel yahay kaliya da reality qof kasta wuu la xiriiri karaa wadanka Oromia ama wixii wadankii loo oran jiray Ethiopia. hadda ma oran karna anaga Ethiopia wax la yiraahdo jirta. Ethiopia tigraagu ciidan bay haystaan. ciidankana waxa weeyaan meel uu ka shaqeynaya ma laha laana then nobody mataqana Soomaalida waxa weeyaan waxa ka dhaxay wali yaqaan Oromia waxa ka dhaxay wali yaqaan Gambela dhinaca Maxarada oo iyaguna resistance ka wada who marka yaa support garaysan way tigraay marka they cannot stay in mataqana long marti just waxa la oran karaa very short period. telefonkana qabanaya hello وعليكم السلام. خط تلفون ما أنا كوتشرين وحان ودني وربان ودني موح عصوبة نوع هيسا أير سوق واحد إن شاء الله هذا بقى 8 دقيقة ملاس هي على سيد إن شاء الله 8 دقيقة سؤالي everybody very welcome saaxiibayaal meel kasoo joogtaan. So this time waxa weeye dalku wuxuu marayaa very mataqaanaa situationku inuu aada u adag yahay. waxaa la odhan karayaa hadda xaaladda oo lagu qiimeyn karayaa. waxaan la hadalay magaalada Goday, waxaan la hadalay Qabri Dahar, waxaan la hadalay Wardheer, waxaan la hadalay Imey Fiiq magaalada Dhuxun oo aan xiriir gaara la sameynay. telefoonka ayaa maartay khadka xumaa. waxaan helay khadka Garbo, Dhagax Buur, Kunagado, Awaare, Qoriile iyo waxaan la hadalay magaalada Jigjiga. xaqiiqatan arrintu waxay maraysaa very serious. shacabka Soomaaliyeed Soomaalida ogaadeenaya this time waxay ku jiraan well prepared ku jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyay ayay ku jiraan liana shacabka Oromia waxa way already they are maartay well prepared. so this time qof walba wuxuu soo diyaarinayaa hanashada xorriyadiisa waa peacefully ayuu qof walba wuxuu ku helayaa si nabadgelyo ah xorriyadiisa ayuu ku helayaa. tigraaga the last point mataqana try ay sameeyeen waxay ahaayeen between Somalia and Oromo inay isku dhuftaan. That's the last game is over. That's over way dhamaatay. way socon waday. They are brothers and sisters Oromo and Somalis. so weligoodna isma dagaalayaan, weligoodna isma dagaal. That is the way dhamaatay. waxaan odhan karaa marka shacabka Soomaaliyeed ha taageeraan halganka jabhadda ONLF, ha taageeraan revolutionka Oromia. then waxa weeyaan waxaa la helayaa freedom qof waliba peace aan mataqaana inuu nabad ku noolaado ayuu helayaa. qof ilaahay markuu adduunkan abuuray on maartay around the world qofna inuu qof adoonsado humana uma abuurin. qof kasta waxaa loo abuuray peace aan mataqaana loof inuu mataqaana ku noolaado oo ilaahay caabudo. laakiin inaad qof caabudo oo isagoo ku yeesho maqala ka yimid oo yimid Jigjiga ma shaqeynayso. they cannot no longer maartay. marka dhamaantiin barnaamijkan gaarsiiya bulshada
xogaha ugu dambeeyey aan helayno waxay sheegayaan in runtii dalkaas Ethiopia la oran jiray ay hadda meesha ka baxday gebi ahaanba marka an yar kadib aan geli doona the one calls السلام عليكم صفي سودو مرو صفي وانكو سلامي سودو waxaa yar baan rabaa inaan idinla sheer gareeyo hadda waxaa isoo wacday gabar saamiya haye si fiican ma la maqlayaa si wanaagsan ku soco safiya saamiya waxay ka tirsan tahay waa qof xubin sare ka ah oo aan la waa taqaanaa Soomaaligana ku hadasha si fiican aad ma garanay oo jabada oo walaf waxay ii sheegtay hadda arrin degdeg ah waxay tiri waxaa Tigreegi soo qaadeen niman ciidan ah oo cabdi ilay laga soo qaaday oo jigtiga la keenay oo ardisaabo loo keenay si ay dadka maalqabeenka iyo dadka dhaqaalaha haysta oo Soomaalida inta u laayaan u dhahaan orama idin dishay loo dhaho dad special bay keeneen marka oo waxay tiri loogu talagalay inay dadka marka hadda waxay tiri dadkii Soomaalida oo ganacsadayaasha ardisaabo joogay ay hadda dabagal ku hayaan haye si loo dhaho orama idin laysay haye wakaasa arintaas hadda ii sheegtay dad magaalada jigjiga keeneen miya niman waxay tiri oo madaxda liyu booliska kamid ahaa baa jigjiga laga soo qaaday oo hadda arsaabo la keena haye marka waxay rabaan oromada inay xaga ku wax ku maya Soomaalida ganacsiga iyo dhaqaalaha arsaabo ku haysata sax bay leen hayaan si ay u dhahaan oromaal idin laysay loo dhaho inay ummadda Soomaalida oo arsaabo joogta inta dhex galaan laayaan si loo dhaho oromadii arsaabo Soomaalida oroma arsaabo ku leynaysa it's very bad waa arrin aad u xun marka waxay tiri arrintaas hadda newskaas hadda noo soo dhacay waa very mataqaana xasaasi waad maqlaysaan akhyaaray meel kastoo joogtaan waxay noo soo sheegtay Marwa Safiya oo aqoonyahan Soomaaliyeed in xubin sare oo ka tirsan jabhadda OLF oo gabadha la yiraahdo Fawziya Soomaa saamiya inay soo gudbisay arrin xasaasiyada leh oo runtii in laga dugtoonaado runtii waa Safiya aad baad maasan tahay xaaladda kulay dawada socotaa وعليكم السلام aad baad maasan tahay waad maqlaysaan Marwa Safiya Cabdi oo Mareykanka nagala soo xidhay waxay noo sheegtay xubin sare oo ka tirsan jabhadda xoreynta Oromiya saamiya gabadha la yiraahdo in ay soo sheegtay warkaas in shacabka Soomaaliyeed ganacsiga ku haysta Addis Ababa la rabo in dhibaato loo geysto kadibna la yiraahdo waxa sameeyay Oromiya waa arrintaas shacabka Oromada kulli way nagu jiraan meeshan hadda inay si share gareeyaan waa important marka hadhowna Oromo ay ku turjumaan Afmer TV anaga waxa ka soo horjeednaa dhammaan wixii violence iyo wixii dhibaato iyo just trouble we are only looking for the peace and matqana dignity and human rights and campaign weeyaan barnaamijyadeena عريش يا wax ka sheegay jabada marka qofka ay soo qora magaciisa qofka wax ka sheegay ii soo qora jabada xaq dirarka anaga member manihin laakiin waxaan ahay dad u campaign garanaya xuquuqda bini aadanka iyo sidii loo nabadgelin lahaa noolaha oo ugu noolaan lahaa si free marka dadka dabadhilifka aad ku sheegaysaan stresskooda waa rabnaa laakiin qofka inuu si edaba ku joogo weeye haddii qofka uu la yimaado waxa aflagaada isaga ayuu talaa dal mar waa ka saaray meesha ma soo noqonayo kaas never ever mardan ma soo geli doono waan ka baan saaraynaa hadda wix ka habeen dhaweyd baan u digay haddana wuu soo laabtay waan arkayay hadda laakiin hadda waan just
caawaan ka qabtay laakiin hadda markaa barnaamij ka baxno gebi ahaanba waan ka baangaraynayna beejka etoobiya lagu kala tegay oo dhimatay ayuu taageeraya maartay wuu aflagaada geysanayaa qofka ra'yigiisa wuu soo gudbin karaa way joogaan hadda dad DDS tan iyo waxaan iyo dadka taageersan maamulkaas wayaanaha laakiin sideedaba ayay ku joogaan xaaladuna way isbedeshay maanta waxaa loo baahan yahay dadku inay midoobaan laakiin shakhsi waxaa iska jira aan garanaynin meesha loo socdo laakiin shacabkana waxaan u baahannahay in la iska dhaafo dabaqoodhi in la iska dhaafo jaajuus dadka inay midoobaan oo ay isgarabsadaan oo ay xaqooda ay si wada jira ku qaataan ayaa loo baahan yahay marka waxaan oran karaa shakhsiga noocaas oo kale waa dad ay waxaa jirta aan xalaal ahayn laakiin dadka waa dad walaalo ah dad fikirka lagu kala qaybsanaa dad ayaa si xun Ethiopia u isticmaasho shacabka Soomaalida ogaadeen ama Soomaali dhibaato u geystay waa kuwa askarta laakiin shacabka la khalday fikirkan aaminsanaa in Ethiopia wax lala qaybsan karo hadda way arkeen qof walba wuu arkaa in Oromiyo iyo Soomaali isku dirayo in magaalada Jigjiga ay go'doon tahay everybody they know qof kasta wuu ogyahay marka yana ku mashquulin taas waa soo dhaweynaa shacabkeena la jooga ama ha wataan magacan Ethiopia u bixisay DDS ama ha wataan wax kale laakiin ka daaya hadda kadib dabaqoodhi waxaan leenahay soo dhawaada dadkiina waxa la qaybsada xornimada hanashadeeda aan ka wada qayb qaadano aan isgarabsano dadku hay isgarabsadaan nabadgelyada u baahannahay uma baahnin dagaal iyo qaylo uma baahnin waxaan leenahay Tigray si peacefully dhulkiina ku noqda nabadgelyo ah dadka kale amxaarada iyo neighborkiina kula noolaada iyo Eritrea si peace Oromiya iyo Soomaalidana si nabadgelyo oo peace la fay ku wada noolaanayaan taas waa message marka aad waan idin salaamay xaaladda halka ayay maraysaa maalinka axadda ah waa maalinkii kala baxa wixii la oran jiray Ethiopia taas final day haddii la haydaa ishaan ku haynaynaa mid kale 2nd of October waxaa ka dhici doona magaalada London demonstration mudaharaad aan caadi ahayn oo mataqaanaa aad u weyn jaaliyadda Oromiya iyo jaaliyadda Ogaden community UK waa mudaharaadkaas dhici doona marka xaaladda halka ayay maraysaa waxaa loo baahan yahay marka shacabkeena waxay loo leeynayay ee loo baabi'inayay waxay ahayd inay xorriyadooda helaan ayay naftooda u waayeen gabdhaheena qaaliga ee dahabka ee maartay birimageydada ah waxay Tigray u farxumeynayeen 26 sano la soo dhaafay ay u dhibaateynayeen waxay ahayd inay gobonimo helaan dagaalkan ka socda ogaadeenaya ma ina qaadin jibhada oo wanalaf qof walba uu ka maqraati kacaya Tigrayga iyaga ayaa bilaabay markii baarlamaanka ka jiray magaalada Jigjiga markaas ee markii hore fadhigiisu waa goday ay ka soo bedeleen markii ay u codeeyeen 100% in afti laga qaado shacabka Soomaaliyeed oo la weydiiyo la joogitaanka Ethiopia iyo inay gaar isu taagaan oo ka xoroobaan gumaysiga maalinkaas ay shacabku baarlamaankii halka ka jiray ay isku raaceen ayay bilaabeen madaxdii inay xirxiraan inay 12 gudoomiye degmo ay qabridahar ka bilaabeen mataqaana iyo wardheer ay ku dileen wadanka hal maalina iyaga marka bilaabay dhibaatada Tigray haddaba shacabkeena waxa kala qaybiyay in nugula ayaa waxay u fahmeen oo is yiraahdeen war Ethiopia hadii la raaco armad macnaha wax la qaybsan kartaan macnaha Tigray maadaama ay yiraahdeen anagu Soomaali waxbaan ogol lahay anagu waxbaan idin ogol lahay shacabka Soomaalida ogaadeenaya please waa nothing way la shaqeeyeen shacabkooda loo isticmaalay askar baa la qoray dadkii mataqaanaa bay dhibaateeyeen maanta waxa loo baahan yahay marka in dadkooda dhinac ay ka soo raacaan si nabadgelyo ah dadkiina soo raaca waxa weeye midnimada waa loo baahan yahay shacabka Oromiya kuwa la shaqeynaya ee idinkoo kala ah Ethiopia ama Tigrayga waxay aaminsan yihiin free Oromiya wayna la shaqeynayaan information ka siinayaan waxba kama qarinayaan kan madaxweynahooda ma aragteen wali madaxweynaha gobolka Oromiya Kiilka Afraad oo ay Oromo caayaan maartay ma arkaysan isaguna ma ogola shacabkiisa militariga Tigrayga wuu diiday inay magaalooyinka soo galaan dhulka Oromiya ma geli karaan
haddaba waxaa loo baahan yahay dadkan loogu yeeri jiray dadka dabaqoodhiga ama hawaarinta dadka noocaas oo kale ah in ay dadkooda soo raacaan oo la isgarabsado oo la midoobo oo xorriyadda maantay u dhowdahay dadkeena intaasoo qarnibaa mataqaana ay dagaalamayaan soomaaliya 7-7kii soomaaliya o dhan baa dagaal gashay caalamku waxa weeye etoobiya uga heeliyey okay wacalaykum salaam maanta marka halgankii 94 soo bilowday ay jabhadda ONLF ay hogaaminaysay wuu midho dhalay waa laga guulaystay mataqaana wixii tigree loolan jiray finish marka akhyaaray waxaan ku talinaynaa iska daaya dabaqoodhiga iska daaya magacyadan hal la isgarab istaago jabhadda oo u taagan inay xuquuqdeena ay soo dhiciso oo in la xisaabtan dhaba la gasho isbeddelkan hadda dhacaya oo hormoodka ka tahay in la barigantaalo oo loo midoobo shacbiyan shacabka oromiya hadda maxabad bay isku xoreynayaan waa midowgay midaysan yihiin iyo muruqooda ma laha dabaqoodhi oromo shakhsiyaad yareer baa jira kuwan hadda dadka laynaya ay tigraago la shaqeynaya waa the few laakiin way midaysan yihiin please hala midoobo iska daaya turtuurka haddii la midoobo ayaa gobonimada lagu gaadhayaa hala taageero ururka haddaada taageerinay haddii kale arrintani way dhacday shacabkuna meeshuu jiro majority waad ogtihiin laakiin qofna lagama maarmo dadku waa inay midoobaan marka saasaan leenahay waa inaad midowdaan waa in aad maaragtay runtii la garab istaaga halganka taas waa dardaaran guud maxamed haddaad etoobiyaan tahay maxaad kasoo doontay meesha maxamed ma maxaar baa tahay ii sheeg soo qor haddaad maxaar tahay noo soo qor waan ku daynayna haddaad soomaali tahay lakin waan ku tuuraynaa maxamed nuur ma soomaali baa tahay maxamed nuur xaaji waxba la kala saari maayo meeshan waa lagu kala adkaaday etoobiya sanka xabad laga geliyay cid dadka waa shacabad ka hadlayso meeshan waa la xoreeyey dhiig badan baa loo soo daadiyey maxamed amiin waxaa la kala saarayaa ma jirto meeshan etoobiya 90 milyan xabad sanka laga geliyey gobonnimaa meesha ka dhalanaysa ciidan baa qabsanaya dadkana xuquuqdooda ayay wada helayaan waa sidaa ujeedadu cid soomaaliya oo la dulmiyayo ma jirto ninka hadda ONLF marka dhulka qabsato ninkii soo istaagi doona ee odhan doona waayo kan maanta dalkiisa wax ka xoreyso etoobiya la dagaalamaya gumaysiga wacalaykum salaam maxamed amiin dadkaad sheegayso may gumaysiga la dagaalamaan oo marka nin soomaali arkay xaniyo yeelanayaan dadka waxa weye waa soomaali inaad kala saartaan joojiya isku meel baa loo socdaa xuquuqdiisa qof walba wuu helayaa oo soomaaliya oo dhulkaa degan iyo ka soomaaliya jooga lafteeda laakiin waxaa loo baahanya ninkii xiniyo leh inuu hadda dagaalamo oo iska celiya tigraaga haddii kale canjeeradaha iskala cuno waa la xoreynayaa maalinka la xoreeyana xuquuqdiisa la siinayaa simple start laakiin gorgortan ma jirto maalinka tigraag meesha ka baxaan baan imanayaa meesha oo shalay xaggeed joogtay markii lagu adoonsanayay ee gabdhahaga la kufsanayay ee calanka etoobiya kaaga hor taagnaa maxaad qabanaysa waa nasanis wey marka waan idin wada salaamaya dhammaantiin dadka ummad soomaaliyeed oo dhan waa dad walaalo ah qabiil magaciisa ninka sheegaana isaga ayuunbaa ku fashilmaya waxa weeye qabiil ninkii etoobiya iskaga celinaya iyo ninkii urur iskaga celinaya isaga u taalaa laakiin ururka ONLF waxay ku guulaysteen in etoobiya salka dhulka ay ku dhuftaan waxay ku guulaysteen inay baraarujin badan ku sameeyaan shacabka oromiya iyo shucuub kale oo fara badan oo gumaysiga etoobiya ku jirta waayahay marka waan idin salaamaya dhammaantiin barnaamijka waan ku dheeraanay aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiin maxamed amiin waxaan leeyahay soomaalidu waa hal gumaysigii reer yurub ayaa soomaalida 5 ka dhigay xooggeeda la kala qaybiyay adigana iyadoo marka xorriyaddii soo dhawaatay ee dagaalka saaxiib 82 magaalo ayaa la gubay sanad gudihiisa shacabka wax loo reebtay male soomaalida ogaadeen wax loo reebay male way dagaalameen etoobiyana way iska celiyeen UN ka sheegay international community oo dhan ma sheegay anu ma sheegay shacabka oromiya weydii
wacalaykum asalaam waraxmatullah. marka meesha waa lagu guulaystay, waa la halgamay, waa lasoo qabanayey, meel kastaa laga soo qabanayay jabhadda iyo shacabka. dhegmayna u dhigin ilaa yoolkoodu ahaa gobonnimo. nin soomaaliya laguma mashquulin in xabad lagu rido. maamulada jabhadda qaqabanaya o dhan waxay awood u lahaayeen inay mid walba badda gaadhsiiyaan. maxaa loogu mashquulaya nin soomaaliya? gumaysiga ayaa lagu mashquulaya. waayo ka soomaaliga waa nin la adeegsanayo oo lagu shaqaysanayo od aragto, oo soo qabanayo walaalka iyo haldoorkaaga. haddaad isaga ku mashquulsho dee tigreegii baa guulaysanaya. shaxda lala ciyaaray tigreega mid qodo dheer bay ahayd, laakiin iyagu waxay lahaayeen jabhadda owanlf intay xanaaqdo iyay maamulada soo qaqabanaya dadka iyo soomaalida soo qaqabanaysa halgamayaasha yay xabadan kulul iyaga ku ridayaan. waa la dejiyey siyaasadan, waana loogu talagalay, waxaana la ogaa tan etoobiya inay ku dhacaysa maanta. waxaan leenahay soomaaliya ha guulaysato, ha israacdo, oromiya ha xorowdo. guul iyo gobonnimo aan isku ognahay dhammaantiin. taa waa inaad ogaataan. somalilan bay ogaadeen nabad kula noolaanaysaa, soomaali weyn baa nabad kula noolaanaysaa. haddii la rabo soomaali, haddii wax laisku darsanayo la midoobayo, waa arrin wanaagsan. haddii soomaalidu dadarisa noqonayso oo dowlado fara badana oo ay si nabadgelyo ah, haddii la midoobayo khayraadka la qaybsanayo, intaasoo dhan waxaa weeyaan waa marka waan idin wada salaamay dhammaantiin. ninkan magaca soomaaliya wataa hebel nuur maxamed nuurka iska tegaya kaas. marka waxaan leenahay hala guulaysto. yarka saaxiibkii maxamed amiin waxaan leeyahay fikirkaaga dib uu noqo. dadka soomaaliyeed waa dad walaalo ah. arrintaana arrin jirta maaha. haddii xorriyadda la helo nin kastoo soomaaliya dhiilkiisa wuu buuxsamaya si nabadgelya. waan idin salaamaya dhammaantiin. waxaan leenahay free ogaadenia, free oromia. السلام عليكم.